taqaanaa milyaneerka tadhacay ee Roman Abramovich iyo taariikhda la wareegidda kooxda Chelsea iyo waliba waxa uu ku soo kordhiyay xiisaha kubadda cagta caalamka. Roman Abramovich ayaa iibsaday sanadkii 2003 kooxda Chelsea oo ka mid ah kooxaha dhexe ee horyaalka Premier League waddanka Ingiriiska iyadoo uu xiise gaar ah u yeelay horyaalka Ingiriiska. Abramovich ayaa iibsaday kooxdaasi oo uu tababaro u yahay Claudio Ranieri ayna joogaan koox ka mid ah ciyaaryahanada ugu caansan adduunka oo ka mid ahaa xidigii waddanka Talyaaniga John Francesco Zola Gronkayer iyo waliba qaar ka tirsan boorteeriga Talyaaniga ee Gudujin, laakiin kuma uusan qancin milyaneerkani isagoo doonayay inuu kooxda keeno koobka ugu caalamisan qaaradda Yurub oo ka mid yahay koobka dhaga weyn ee UEFA Champions League. Milyaneerkan ayaa isla markiiba keenay tababarihii sanadkaasi u shidnaa qaaradda Yurub ee Jose Mourinho oo soo qaaday koobka dhaga weyn ee UEFA Champions League oo la soo qaaday kooxda FC Porto, kaas oo horey u soo kaxaystay qaar ka tirsan xertiisii u suurtagelisay in ay koobkaasi qaadaan. Waa Deco, waa Ferreira, taasi oo lagu daray xidigii reer Ivory Coast Didier Drogba, kaas oo Marseille ka soo dhigay wacdaro isla markaana soo qaaday UEFA Cup. sidoo kale John Sebastian Veron xidigii loo caalwaayay ee Manchester United iyo ciyaaryahanka caanka ahaa ee reer Argentina oo loo yaqaan Lulka Barma oo markaasi uu kala soo wareegay kooxda Internazionale Milano waa Hernan Crespo. Chelsea ayaa noqotay koox aad looga cabsado markaasi isla markaasna u tartamaysa horyaalka qaaradda Yurub iyo waliba Premier League iyadoo Roman Abramovich uu farqay xidigihiisa isla markaasna uu isku soo wareejiyay kooxda si uu u helo horyaalka Premier League waxay ahayd arin aad u adag oo u baahan in aad loo dhiso kooxda kubadda cagta ee Chelsea isla markaasna la keeno xidiga hal door ah kuwaasi oo qaaradda Yurub aad looga yaqaano. waxa kamid ah xidigaha uu aadka u raadinayay Luis Nazario, Dalima, Ronaldo, Roberto Carlos, Zinedine Zidane iyo oo markaasi u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Real Madrid, laakiin uma suurtagelin Roman Abramovich xidhxidhashada ciyaaryahanadaas reer Brazil iyo Faransiiska oo uu rabay inuu ku soo biiriyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea. laakiin Chelsea waxay noqotay il ay u hamiyaan koox kasta iyo waliba ciyaaryahan kasta oo qaaradda Yurub ka ciyaara. waxaana ninkan batraamay ee Russianka ahaa uusan marna ku qancin kali ah horyaalka Premier League waddanka Ingiriiska oo Jose Mourinho oo uu kooxda soo xirigeliyay sanadkii koowaadba waxa uu doonayay oo kali ay ahayd horyaalka Champions League. waxaana tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Jose Mourinho oo markaasi damcay inuu kaansado horyaalka Champions League laakiin uma suurtagelin. Abramovich ayaa ka tuuray Jose Mourinho isagoo adeegsaday ilaa iyo 11 tababare xilli ciyaareedka uu hayay inta uu hayay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. tababarayaashaasi waxaa ka mid ahaa tababaraha xulka kubadda cagta u qaaday koobka Brazil Luis Felipe Scolari. Alvar Grant oo u dhashay waddanka Israel ayaa sigay inuu qaado championka isaga oo ay taasi diiday kooxda kubadda cagta Manchester United oo rigore ay uga qaaday rigoradii ugu dambeysay oo uu John Terry la waayay shabaqa kooxda Manchester United. Luis Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez, Phil Boss oo isagu xilligaas ay dhaxda u mareysay horyaalka Champions League laga qaaday isla markaasna lagu wareejiyay ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Chelsea oo si ku meel gaar ah u qabtay waa Ruben Di Matteo, kaasi oo ugu dambeyn ku guuleystay inuu soo xirigeliyo London markii ugu horeysay koobka UEFA Champions League. milkiilaha Chelsea ayaa noqday milkiile caan ah isla markaana ka soo qayb gala kulan kasta oo ay kooxda Chelsea ciyaarayso isla markaasna noqday nin ay adag tahay sida lagu qanciyo. waxa uu soo xirigeliyay ciyaaryahanada caanka ah dunida oo midkii dhaqaaqaba uu la soo wareegayay Cesc Fabregas, Fernando Torres, Andrei Shevchenko, taasi oo lagu sugayay wiilasha Chelsea ku soo barbaaray ee Frank Lampard iyo John Terry. Chelsea ayaa noqotay koox aad looga cabsado isla markaasna ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub, taasi oo u suurtageliyay ogana mahadcelinayaan Roman Abramovich. taageerayaasha kooxda Chelsea ayaa u yaqaan ninkani Awman waana mid ka mid ah nimanka ugu xariifsan uguna xirfadda fiican suuqa kala iibsiga ciyaartoyda caalamka. Roman Abramovich waxa uu raadinayaa ciyaaryahanno cusub isagoo u ballan qaaday tababaraha cusub ee kooxda Chelsea Frank Lampard inuu keeni doono xildoorka ciyaaryahanada caalamka kooda ugu waaweyn iminka. waxaana sidoo kale uu ka dhigay suuqa caalamka mid soo jiita indhaha isagoo oo ay noqotay in kooxaha aad loo xidhxito. Manchester United oo aad ay loo diidanaa in la iibsado ayaa waxaa iibsaday milyaneerka reer Mareykan ee Mark Glazer. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Newcastle ayaa iminka la rajeynayaa inuu la wareego dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Carabiga ee Mohammed bin Salman.
waa Ismaaciil Geele oo idin leh isla socod walba mar kasta iyo meel walba oo aad joogtaan idinkoo naga fisha inaan idin soo gudbino warbixinadii ugu dambeeyay ciyaaraha suuq kala iibsiga iyo waliba natiijooyinka kubadda cagta kuwooda ugu xiisa iyo xamaasad badan barnaamijyo cusub ayaad naga sugaysaan maalmaha soo socda iyo taariikhaha ciyaaryahanada ugu haldoorsanaa ee dunida soo maray haddana waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin asxaabta qiimaha iyo qadaranta naga mudan ee adduunka naga dhagaysanayo dhammaantiinba waa Ismaaciil Geele oo idin leh nabadiino nooli kulanti wanaagsan iyo amaana Allah